السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي ku xiran janalka marka la soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin. Maanta waa talaado waana 15 bisha Juulaay 7 sanadka 2025. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago email ay team welcome corps ay u soo direen dadkii group 5 xareeyay. Maxay tahay rajada laga yaabo in qaar ka mid ah dadkii kiisaskooda ay soo gaareen caafimaad amaba sidoo kale ay soo gaareen in ticketkii loo jaro in ay rajo leeyihiin iyo in kale ayaan idinla wadaagayaa. maxayse yihiin dadka ay sheegayaan inay Mareykanka imaadeen 11kii bishan. Arrimahaasi ayaan idinla wadaagayaa oo group 5 team welcome corps emailkaasi ay soo direen. dhinaca kalena aqalka cad ayaa maanta lagu kala cararay, gabi ahaanna la xiray oo lockdown la geliyay. sababtu maxay ahaydna sidoo kale waan idinla wadaagayaa. balse marka hore soo dhawaada. maalin dhawato waxaan idin sheegay in maamulka Trump ay wasaaradda arrimaha dibadda shaqada dadkii laga ceerinayay ay ku jireen qaar ka mid ah dadkii qaabilsanaa process garaynta qaxootiga oo ilaa iyo in ka badan 240 shaqaalihii safaaradaha joogay, qunsuliyadaha joogay, isla markaana ka shaqeynayay waaxda Mareykanka u qaabilsan dib u dejinta United Refugee Admission Programka in shaqadii laga ceeriyay. Trump markii uu xilka la wareegay 20kii January waxaan ognahay gabi ahaanba qaxootigii waa uu kansalay. waxaa jiray dad ay tikidhadu ay u jarnaayeen oo gabi ahaanba la kansalay oo la yiri Mareykanka ma imaan kartaan. dadna caafimaadkii ayay mareen oo waxay sugayeen in tikidhadii loo jaro sidaasina Mareykanka ay ku imaadaan. haddaba marka arrintan maxay tahay hadda ay teamka welcome corps emailkan ay soo direen isla markaana ay leeyihiin waxaan rabnaa inaan arrintan dadka aan la wadaagno. waxay leeyihiin emailkan ay u soo direen dadkii group 5 ka xareeyay waxaan rabnaa inaan idila share gareyno ama aan idila wadaagno arrin muhiim ah in qaar ka mid ah process gareynta qaxootigii dib loo bilaabay kadib markii maxkamad arrintaasi amar ay ku bixisay toddobaadkii la soo dhaafay. marka dacwadan socotay waxaa la yiraahdaa Basito iyadoo sidoo kalena dawladda lagu dacweeyay joojinta qaxootigii Mareykanka la keenayay isla markaana Mareykanka si ammaan ah ku soo degay oo Mareykanka imaanayay. waxaa muuqata marka qof la keenay hadda 11kii bishan in uu hadalkan sheegay. waxa uu leeyahay waxaan hadda dareemayaa in aan duceysanahay maxaa yeelay markii hore waxaan ahaa rajo la'aan, laakiin daqiiqadii maxkamaddu ay tiri waxaa dib loo bilaabayaa processingkii case-kaada amaba case-kii isagu uu lahaa mar kale ayaan dhashay ayuu leeyahay. tamar cusub ayaana isoo gashay, sidaa darteed waxa aan dareemayaa hadda in mustaqbalkayga uu rajo leeyahay. hadda wuxuu leeyahay halkan ayaan joogaa, macnaha waxay tahay Mareykanka ayaa qofkaasi la keenay 11kii bishan. hadda halkan ayaan joogaa, xitaa ma jirto erayo aan ku qeexi karo. waxa uu leeyahay qof aan weligii qaxooti noqon ma fahmi karo dhibaatada ay la kulmaan qaxootiga. sidoo kale ma helaan ayuu leeyahay xitaa waxyaabaha aasaasiga. marka waxa aan ku duceysanayaa in ay rajadan ay noqoto kiiskan mid rajo u yeesha dhammaanba qaxootiyada kale ee iga dambeeya, fursadna u siisa in ay noloshooda wax ka bedelaan. marka dadkii dacwadda gudbiyey ayaa labadaasi code ka soo qaatay qofkii Mareykanka la keenay. marka waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa in qoysas kale oo qaxooti ah maalmaha soo socda ay Mareykanka yimaadaan. marka dadkan ma dadkii qaxooti ahaan Mareykanka ku imaanaya iyaga naftooda ma kala cadeynayaan iyo in ay yihiin dad group 5 ahaan ku imaanaya, laakiin waxay leeyihiin maalmaha soo socdana waxaan rajaynaynaa in dad kale oo qaxooti ah ay Mareykanka ay sidaasi ku imaadaan. waxay leeyihiin waan ognahay in aad su'aalo badan qabtaan arrintan maxay uga micno tahay welcome corps, laakiin hadda la joogo waxay leeyihiin welcome corps gabi ahaanba waa xiran tahay. marka sida hadalka ka muuqata qofkaasi group 5 ahaan laguma keenin, waa dadkii tikidhada laga kansalay ee qaxooti ahaan la filayay inay Mareykanka ku imaadaan. qofkan hadda hadalkaasi sheegay aan idinla wadaagay oo Mareykanka yimid. sida hadda ka cad emailka team welcome corps waxay leeyihiin weli welcome corps sidii Trump uu u xiray ayuu u xiran yahay. kiisaskiina weli waxa ay yihiin kuwa aan la process garaynaynin oo gabi ahaanba halkoodii ku xiran.
marka waxay leeyihiin the International Refugee Assistance Project oo loo soo gaabay IRAB ayaa hadda waxa uu hogaaminayaa dacwad lagu matalayo hay-adaha dib u dejinta qaxootiga iyo sidoo kalena Welcome Corps groupkan ah dacwad ay ku midaysan yihiin ayaa the International Refugee Assistance Project ay hadda hogaaminayaan kiiskaasina dacwadiisu weli waa ay socotaa waana idila sheer garayn doonaa waxyaabaha horumarka ah ee kiiskaasi ka soo baxa waa sida hadda ay leeyihiin teamka Welcome Corps marka waxay leeyihiin sidii toddobaadkan horaantiisii aan idinku sheegnay conference-gii aan qabanay waxaa jirta in maxkamadda degmada ma aysan sheegin ay qorsheynayso in ay arintaasi amar ka soo saarto dhamaadka toddobaadkan isla markaana in loo baahan yahay in kiisaska kumanaan qaxooti ah dib loo process gareeyo tikidhadoodiina dib loo booking gareeyo isla markaana hakinta laga qaado qaxootiga Trump uu saaray kuwaasi oo ku tiirsanaa ballanqaadka Mareykanku uu sameeyay oo ah in dib u dejin Mareykanka loogu sameeyo taasi oo Trump uu kansalay marka waxay leeyihiin arintan newskan ku aadan in qaxooti ay Mareykanka si nabad ay ku imaadeen waa war aad u wanaagsan oo farxad leh waxaanan weli sii socda in hakad la geliyay kumanaan qaxooti ah arintaasi oo ah arin niyajab aad u weyn ah sidaas darteed anaga nafsad ahaanteenu waan dareensanahay inaad niyajabsan tahay laakiin kaliya ma tihid waxaa jira wadooyin kale oo aad niyajabkaada wax aad ku talaabo aad ugu qaadi karto oo talaabo aad ugu bedeli karto waxay leeyihiin waa inaad la xiriirtaa Congress-kaada xiriir waa inaad la samaysaa isla markaana aad ku boorisaa in maamulka Trump ay dib u bilaabaan qaxootiga process gareyntooda kuwaasi oo ka mid yihiin Welcome Corps marka waxay leeyihiin Congress-kaada la xiriir sidii team Welcome Corps ay dhihi jireen waa inaad saxiixdaa petitionka ama codsiga loogu baaqayo mas'uulka deegaankaada laga soo doorto ama heer state ha ahaado ama heer federaal ba ahaado inay xaqiijiyaan in dawladdu ay dib u bilowdo waliba si buuxdo keenista Mareykanka qaxootigii ama in dib process gareyn loo bilaabo qodobka saddexaad waxay leeyihiin waa inaad nala wadaagtaa bulshada waxyaabaha hadda ka dhex jira dadka sponsorka sugaya oo group 5 xareeyay iyo sidoo kale sheekooyinkaada kale ee la xiriira dhibaatada ama caqabada ay leedahay in la joojiyo qaxootigii iyo sidii waliba dib loogu soo celin lahaa dib u dejintii qaxootiga Mareykanka la dejin jiray marka sida muuqata arintan rajo ayaa ka muuqata walow team Welcome Corps ay leeyihiin dadka la keenay ma ahan dad group 5 oo waa dadkii qaxooti ahaan sida caadiga Mareykanka ku imaan jiray oo Trump uu ka kansalay tikidhadii markii uu xilka la wareegay 20 January laakiin sida muuqata waxay leeyihiin dacwada ayaa socota rajo ayaana jirta emailkan teamka Welcome Corps waxa ay u soo direen dadkii xareeyay group 5 oo macnaha in ay la wadaagaan halka ay wax marayaan iyo inay rajo jirto marka wali rajadaasi ayaa jirta maalin dhaweeto waxaan idin iri rajo ma jirto laakiin sida hadda muuqata team Welcome hadda kadib wax la process gareynaya inaysan jirin laakiin dadkii caafimaad soo gaaray wax interview laga qaaday inaysan jiri doonin laakiin dadkii caafimaad soo gaaray ama tikidhadoodii la kansalay iyagoo u booking gareysan amaba loo booking gareey rabay dadka hadda caafimaadkii 6 bilood ayaa maamulka Trump uu ku sii dhow yahay caafimaadkii waa ay ka dhaceen dadka qaar ee la soo xiriiray waxay sheegayeen dad caafimaad loogu wacay inay jiraan sidoo kale marka rajadaasi ayaa jirta oo emailkan ayaa teamka Welcome Corps ay la wadaageen dadkii group 5 xareeyay waxyaabaha ka soo kordhana haddii alla idmo waan idila soo socodsiin doonaa in arrimahan group 5 dhinaca kale aqalka cad ayaa maanta gabi ahaanba lockdown la geliyay muddo 30 daqiiqo ah ciidamada Secret Service ee aqalka cad ilaaliya waxa ay sheegeen in shay aan la garanaynin laga soo tuuray darbiga dhinaca waqooyi ee aqalka cad isla markaasina wariyaal banaanka taagnaa oo idaacadahooda si toos ula hadlayay loola cararay qolka briefing roomka oo afayeenka aqalka cad ay shirka jaraa'id ku qabato wariyaasha ayaa waxa la arkayay iyagoo telefoon ku hadlayo idaacadahooda wargelinaya heladooda in arintaasi ay jirto madaxweynaha iyo shaqaalaha aqalka cadna meel ammaan ah ayaa la geeyay xitaa wasiirka waxbarashada Linda McMahon oo si toos ah loo wareysanayay live TV oo u wareysanayay iyadana waa lala cararayo gudaha aqalka cad ayaa lagu la cararay ciidamada Secret Service marka waxa ay xireen wadada hormarta aqalka cad ee Pennsylvania Avenue iyo sidoo kale guud ahaan aqalka cad baaritaan ayay bilaabeen sida aad aragtaan ciidamada Secret Service
oo aqalka cad ku wareegaya ma aysan faahfaahin waxyaabaha laga soo tuuray derbiga dhinaca waqooyi aqalka cad maxay ahaayeen ma bamay ahaayeen ma waxyaabo kale ahaayeen ilaa hadda wax faahfaahina ma aysan ka baxin muddo 30 daqiiqo kadibna aqalka cad dib ayaa ciidamada Secret Service waxay sheegeen in wax qatar aysan jirin isla markaana howlihii si caadi ah loogu soo laabtay arrintan waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo 2 maalin ay ka soo wareegatay markii guddigii Congress-ka oo loo xil saaray inay soo baaraan isku daygii til madaxweynaha hadda xilka haya xilligii musharaxa uu ahaa isagoo olole doorasho ka jeedinaya magaalada Butler ee gobolka Pennsylvania wiil dhalinyaro ah oo 20 jir ah oo cadaan ah oo la oran jiray Thomas Matthew Crooks oo 8 xabadood ku soo riday madaxweynahana dhegta midig uu dhaawac ka gaarsiiyay isla markaana arrintaas waxay dhacday 13 July ee sanadkii 2024 guddigaasi uu hogaaminayay senatarka laga soo doorto gobolka Kentucky Randy Paul ayaa waxay sheegeen in dayacaad dhinaca ciidamada Secret Service ay jirtay 6 kamid ah shaqaalaha ciidamada Secret Service ayaana shaqada laga joojiyay arrintaasi darteed maadaama madaxweynaha ammaankiisa oo xilligaasi musharax ahaa ay sugu waayeen waxana rasaastaasi ku geeriyooday nin la oran jiray Cory Comparator 2 qofna dhaawac halis ayaa ka soo gaaray walow markii dambe ay ka kabsadeen wiilkaasi dhalinyarada ah cadaankana markii dambe ciidamada Secret Service ayaa isagoo saqafka goobtii uu Trump ka soo tooganaya saaran ay hal xabad madaxa uga dhufteen sidaasina uu ku geeriyooday marka aqalka cad maanta muddo 30 daqiiqo ayaa gabi ahaanba u xirnaa ciidamada Secret Service iyo aqalka cadna sababta keentay in aqalka cad muddo 30 daqiiqo la xiro oo wax soo galaya iyo wax ka baxaya aysan jirin in sababtaasi ma aysan sheegin laakiin markii dambe 30 daqiiqo kadib markii baaritaan ay sameynayeen waxay sheegeen in xaaladdu ay caadi tahay isla markaana aqalkii cad howlihiisii uu mar kale dib u bilaabay wasaaradda waxbarashada waxaan ognahay Trump in ay maxkamadda sare u ogolaatay Trump wuxuu rabay wasaaradda waxbarashada inuu baabiyo hore waa kii wareegtay u saxiixay wuxuu yiri gobolada ayaan waxbarashada dib ugu celinaya maxkamadda sare waxay u ogolaatay shaqaalaha inuu ceerin karo ilaa 1400 ayuu shaqada ka ceeriyay laakiin garsoore kale oo federaal ah oo Boston fariista ayaa isaguna arrintaasi hakad geliyay oo waxa uu yiri shaqaalaha shaqada lagama ceerin karo arrintaasina halkaasi ay hadda maraysa aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono saaxiibkiin cilmi waro idin la sida iyo nabadgelyo